dadka maan isugu yimidow waa salaaman tihiin oo hantida ka maqan tahay una doodaya haqooda waa salaaman tihiin salaantaas ka bacdi waxaan halkan isugu nimid talo odayaaleeda lagana tashahayo dhibaato ka socota deegaanka Caliyaalo oo hoos tagta degmada Balcad dhibaatadaas oo jirta ayaa rabnaa ka hadalno intaas ka bacdi waxaa jira yacni dhibaatooyin badan oo dhacay kana dhacay dhul ku yaala Caliyaalo iyo deegaanle inta ka dhaxaysa dhulkaas ay waxa gadahayaan niman habeenkii socda oo tuuga ninka habeenkii socda waa tuugo xalaashaada maalacada la cunaa niman tuugaha gada dhulkaas tuugadaas oo waxa ay wataan shirkado lacag leh iyo shakhsiyahan asagana raba dadkan ma degan inuu barakiciyo dhulkaas ma isku yaala wuxuu ka dhaxeeyaa dad agoona welina dhulkaas lama dhaxlin wuxuu ka dhaxeeyaa dad agoon oo ka dhaxay dhulkaas waxaan ogeysiihaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo meediyaha dadka haddow dhibaatada ku soo bixi doona iyo dadka hadda og iyo dadkii taladaas hore u galay waxaan ogeysiihaynaa dhulkaas inuu yahay dhul agoomeed lanaan kada karin dadka shirkadaha iyo dadka horjooga waxaan ogeysiihaynaa dhulkaas inayna ku ajarmin dhulkaas waa dhul agoomeed agooma iskale waa dhaxaltooyo dadka dhulkaas lahaay yacni beled baadiya Afrika Aasiya Yurub Ameerika xamar meel boo wada jiraa ma kula sana ilaa dhulkooda iyuka ay ka wadaagaan ay dhulkooda ay wax ka dhaxladaan yacni nin kada kale ma jiro waxaan ogeysiihaynaa nimanka dallaalada oo dhulka gada oo beenta dhulka ku kata oo noloshooda maalintii kale ka tactira waxaan u sheegaynaa dhulkaas hadda kadib wixii uga halaaba iyuka iska haleeyay dallaalaynta dadka ay nagu soo kacaysa naga joojiso haddayna naga joojin dhulkaas waa ku dhimo doonaan dhulkaas tada hor ugu dhintay hadda in lagu dhinta ma rabno waa culay af odayad ka mayeerto odayaal baan nahay ninkii muslim oo Soomaali oo lacagtaas raba dhulkaas agoonta inuu ku dhac rabo hadduu isleeyahay banaanka naga maro haddowna naga marin wuxuu kala kulmo qof oo foogto haysta ma jiro shirkadaha lacagta leh ee dhulka gadaayo waxa idin sheegaynaa dhulkaas ay lacag iska gelinina hadda iska gelisay lacagada ka dhunto waay kii hore loo gadayna waa dhuntay nin ma how lacagtaada nin walba waa ka dhuntay dhulkaas ma gadmo waa dhul agoomeed mana gedmi doono kii la gadayna ma gadna kii gatay lacag ay uga jirtana hatta ninkii lacag ka qaatay ha ka doonta lacagtiisi dhulkaas waa dhul agoomeed yaan la gadanin shakhsiyow banaanka ka mar guud ahaan banaanka laga maro shirkadaha lacagta yacni rab inay nagu barakacshaan iyo nimanka horjooga shirkadaha oo beeca ku horjooga banaanka naga maraano hadday dad islaam yihiin haddayna naga marin dhulkaas unuka inaan shirkadaha iyo dalaalka inaan iska celino kuna aan dhimanno diyaar u nahay laakiin dadka arqabadana dhex degan oo nagu dhex nool oo dhexdeena ku nool oo yacni walaala
oo ahala unuga qofaa wax u dhimayna ma jirto dhulkaas ha noogala joojiyo beeca ha noogala joojiyo shirkaday naga joogso shakhsiyow naga joogso tallaalow naga joogso tallaalow haddaad naga joogsataydo dhibaatadii dhulkaas kugu gaarta nin aad u haysata male salaamu calaykum waraxmatullahi anigu nabadoon axmed qaasin gacal waxaan ka hadlayaa nabadoonka iga horreeyay warkuu yidhi kulli warkayna wax isma dhaama anaga haddaan nahay dad agooma oo hadduu yidhaha dhibaato keentay habeenkiina la dhacaayo waa joogi weyne wax bini aadana oo hadduu ilaahay yidhaha dhib iyo dhibaato u qabna malo laakiin waxay aniga hadduu ilaahay yidhaha hantidayni iyo milkigayni yaa habeenkiina la mirayaa markiina la miraayo nagalamana tashan tuuganimona tala xumo waay waxaan ka warramaynaa in waxayna noola nabadgelsho dadka hadduu ilaahay yidhaahdo shirkadaha isku sheegaayo war shirkadaha haddaa wax gadaysa maalin maa wax gadatid maxaa dilaal tuuga habeen u soo dirta maxaa karbuun iyo waxa internet la leeyahay dhulka hoose cawadi lagu gadaayo maxaad u keentay unuga taas raali kama nihin ninkii hadduu ilaahay dirisa oo goofka yaqaano loo soo diraayo aniga xaqiga lama ka dhaxay 9 jilib oo dhulkaas ka dhaxaya agoonna way 9 jilib oo ka dhaxaya oo bariso mataana ninkii hadduu ilaahay ana adeerka hadduu ilaahay raado diris oo goofka yaqaano habeenkii la soo wadaayo goofka ku dhimani ninkaas oo dharkaysane hadduu ilaahay raado wax gadahayo ninkii wax ka gadaayo maali cadaaba keeni kartaa moogta nin wax nugula ma jiro 9kaas maro oo hadduu 9kaas jilib agoon waaye waxoodana beec maahan habeen in la mirana xalaal maahan anaka shalay maanta dhibaa ka dhacay 12 bilood dagaal ka socda 10kaas labadaas bilood dad ku dhintay dadkii ku dhintay Allah u naxariistaan leena haddana dhimasho kale uma joogno laakiinse ninkii habeen socdow hadduu ilaahay yiraahdo waxaad la kulanta kaynta anaka waxaan idinka waanihaynaa shirkadahana u sheegaynaa adduunkana u sheegaynaa Soomaali weyna u sheegaynaa inaana dhulkayna habeen anaka dhulkaas intaas inaana hadduu ilaahay la gada karin waxaan raali la iskaaga ahayn lagu dhaxay maan karin ninkay wax ugu jiraan hadeer ba raadsado hadduu raadsan waayana asaaska dhush ma maqlaysiin Soomaali waxaan u sheegaynaa dawladdu u sheegaynaa hadduu ilaahay yiraahdo ummadda Soomaali u sheegaynaa inta islaamana aan u sheegaynaa anaka nabadaan u baahanahay waxayna nabadgelshaan rabnaa haddii islaamnimada jirto marka waxaan idinkaga baahanahay in adinkana ummadda Soomaaliyeed marxaati ka ahaatiin ninka hadduu ilaahay yiraahdo meediyaha ka maqlo ninkii hadduu ilaahay der maqlaayaba hadduu ilaahay yiraahdo waxayn in noola nabadgelsho annana dad nabadgelino ayaa diyaar u nahay islaameed ina dulumna lama rabo laakiin hadduu ilaahay yiraahdo hadii noogu yimaado tarakadayn iyo tacabkayna noogu yimaado waa ku dagaalamayna nimaana wax la lahayn oo dhaxalna la lahayn waxuu naga helaya ma jiraan halaga waan toobaa in leenahay geed gaaban iyo geed dheer la koreynaa anaka hantidayna habeen lama xadi karo maalin lama xadi karo hadduu ilaahay waa soo jeednaa maanta oo hadduu ilaahay yiraahdo bisha 15 tahay wixii oo hadduu ilaahay yiraahdo biriga oo 15 tahay bisha 25 tahay 22 tahay meediyaan ka sii deyn inta ka horeysay hadduu ilaahay yiraahdo waa shubani hadda waxaan idin ogeysiinaa intii maqal iyo muuqaal ba ka aragto dhulkaas laga waan toobo 9 jilib iskale 9 jilibna biriga wax ma dhaxlin maalinkay wax dhaxlaan ninka dhaxal ku la Allah gaarsiyo korka imaadna wax kama heli karo nin socdaalana wax kuma laho shirkad oo tuugan caawad xamad shil keelimayso dhimasho ka diyaar hadii nabadgelshan qafaan u tilaabsan oo tarakadeed ugu tagayno tacabkeed ugu tagayso malo ugu tagayno anakana waxayna in noola nabadgelsho sida islaamnimada ku jirto ee cadaaladda ku jirto inaan ku dhaqanno aan diyaar u nahay wixii la dhaafsan waana dhibaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh iyo deegaan lay beesha caliyaalo iyo beesha deegaan lay inta ka dhaxle ninkii ku ajarmo oo say jeebkiisa tahay xaq dadow kuma jiro yaa nagala gelin ninkii doorka ka yimidow xoolaaga cisho ku roon yahay waxaan rabnaa waxaan codsanaynaa oo meediyaha ka codsanaynaa ambaan u sheegaynaa dadweynaha doorka ka imaahayo oo dalkayna raba oo na barkicihayo ogeysiisaan ka baxaynaa hana la balgalsho dhulkaas deegaan ley iyo caliyaal inta ka dhaxayso 9 jilib iskale 9 jilib ma dhaxlin agoon waaye
hanana shirkadaha beesada la wareegayo oo isku kayna diraya banaanka naga maraan raba anigoo mataqaan ka hadlayo odayaashan waxay hore uga hadleen oon isku nahay inaan nahay anaga dad 9 jifo ayoo waxaas dhulkaas lahaayeen haddaan dhulkoodina loo yimiday shirkadaha wax gadahaya iyay ku ajarman waxa ma laho waxay leeyihiin male mataqaana nirig xalaala hal booliye nirig xalaala ma dhasho dhulkaas waxa iskala bariisa mataana iska laho iyay ku ajarman dadkan imaha shirkadaha lacagta laga soo qaadahay iyo dadkan mataqaana maalin nolomeed ka raadihay anaga maalkayna maalin laga raadiyo anaga iskale dhulkaas bariisa mataana iskale caliyaal iyo deegaan le intuu dhaxle bariisa mataana iskale nin oo mataqaan lahayna dhulkaas gadama har dadka caawadii ku tuugay dhulka gadaha ayaga wax ma laho dhulkan bariisa mataana iskale dhulkan dhul agoomeed waaye oo yaana lagu halaabin shirkadaha waxay dhibaatadii dhacday mas'uuliyadeeda waxa qaadayay shirkadda Hormuud oo dadkaas u soo adeegsatay lacagtaan mataqaana u soo adeegsatay anaga inayna barakaciso ugu tala gashay inayna dhul lahayno islaameed dhulka inay gadatay hadduu asaga on laga rabo dhulka heersihay isaga on isuwaa lees weydiyaa heerka dhulkaas sii haayo dhulkaas bariisa mataana iskale nin kale male dadkaas dhulka ka gadahayo waa dad qaacin wadana dhul male waa dad imaha iska joogay waxay leeyihiin male dhulkaas bariisa mataana iskale yey ku ajarman Hormuud yey ku ajarman umada iidaa qaribo hoose yey ku ajarman dhulkan bariisa mataana iskale hadii dad uga dhinto ama dhibaato ku dhacdo mas'uuliyadeeda iidaa qaadayso dhulkan dad ku dhintay wax badan dacwadiisa doodiisa wax badan ay socotaa umada islaamka dhageysan ha ogaado dawladda mas'uuliyadda ka Soomaaliyeed ha ogaato dhulkaas qofti wax uga halaba iidaa biriga mas'uuliyadeeda qaadayso Hormuud ayaan ku eedayhayaa inamaka dalaalada oo meelaha murul oo niman dhul lahayn wax laga ma gato nin cawmadu wax gaday wax male islaamkan waxay ku banaan tahay inaan habeen madow hanti ma guurtaa la kala gada karin dadkooynaha waxaan u sheegaynaa iyo shirkadaha waxaan u sheegaynaa waxooda inay gudis ka shubin waxooda inay maalin cad gataan haday magac gadahayaan marka anaga daan la dhaqanka mataa Abdullah ama dhaqan bariisa mataa wuxuu isku raacsan yahay inaan habeen madow dhulkaas la gidi karin lana gidi karin ba marka dadka soo ajarmo iyo soo lugu salaan kadib anaga ragaan wax ma isku keenay waa dhibaato jirto oo dad hadaan baashal u yimid ma ahan muhiimadda laga leeyahay waa in laga hadlo odayalka khiyaarta nabadooyadan ka warrameen laakiin waa on waxba ku darsaha deel yiraaho waxaan rabnaa anaga dad waxaan ahnay ducafaaha ma iska degan oo dhulkooda dhex joogo dad u yimidna inay dhibaateeyaan ay ka shaqeeyo hayaan annagana wax dhibaatayno saacan la joogo diyaar u meehin horana ugu ma haynin maanta oo taariikhdu tahay 22 bisha Maarso 2020 wixii ka horeeyay ilaa sanadyaal hore dhulkan doodiisa socotay hasa ahaato kulli akhyaar baa on mar walba ku dhex jirtay oo maamula ku jiray laakiin waxba kama soo naasacadaanin meeshu waxa ka dhacday dilaa ka dhacay dhibaato ka dhacday dad ku hantay beelay dad guriyahooda degi waayay marka waxaan codsanaynaa niman habeenkii toosh la wareegayo oo shirkad hor joogto iyo niman tuuga ay hor joogan ayaa jiro maalin iyo habeenba dhulkan 9 jilib oo bariisa mataan ka dhashay ayaa iskale oo tub caliyaale ayagina waagada wax ma dhaxlino ayagiyaaba wax ka maqan yihiin nin asaga kor ka yimiday oo hadaan mataanka ba xataa meel ka soo galina wuxuu rabiyaa dhul oo una lahaynin inuu gato ma suurtagaliso gadasho hor waa u dhacdo waa maqalnay laakiin wax gadan ma jiraan biriga wixii ka dambeeyo hadii alla yiraaho si akhyaarta hore u warrameen dibki ka dhaco meeshaas qofti lagu dilo oo timaado amba ganacsi ha ahaato dadkii mihiboobayay waxaan u sheegaynaa maamulada ka arrimiyo amba Hirshabeelle maamulka degmada Balcad meeshan Balcad laga xukumaa Balcadna Hirshabeelle laga xukumaa iyo maamulka Banaadir dawladda hay'adaha adduunka meel walba waxaan ka sheegaynaa biriga 2020 bishii 3aad 22deedii wixii ka dambeeyo culayski ka yimaado wixii ka horeeyay waaba ka soo gudubna wax alaal wixii naqabtay laakiin biriga wixii ka dambeeyo dhul naga biriga ka dambe wax wixii hore noo gadnayna ma gadno biriga kadib wax la gadi karana ma jiraan
ilaa dhulkan bariisa mataan oo caliyaala ka bilaawdo webigana ku xirmay ilaa carramadoobu ku jira carra cad kaliya xataa ma ahan dhulkaasi waa dhul abeed dad uu ka dhaxeeyaa hal oday ilmihiisu ka dhaxeeyaa waxaan warar meelaha ka maqlaynaa xataa 3 nimo oo la soo qabtay oo la yiri adinka noo saxiixa 3 nin waxba ma leh dhulka adoogadiiba saxiixi karinba nin ma dhul adoogii saxiixi karna dhul toleedaan saxiixa yiri sida hadda maqalka aan qabno ma suurta galayso ninkii bariisa mataana u dhalatay dhulkan ii saxiix dhul dan guud oo dad ka dhaxeeya ku saxiixay tuug waaye ninkii loo saxiixana waa tuug taas waan ka cabaynaa walaala la yahay inaan isku dilno ama ku doodno maalin dambe ma rabno biriga inay nooga ekaato ayaan codsanaynaa marka madaas ugu gudbamahaas maamuladana iyagana waxa la rabaa dadka ay u dhaarteen ay inay amnigooda sugaan oo ninkii gar daran iyo ninkii gar laba inay kala baxshaan ayaa laga rabaa maamulkana xaqiisa cadaalad daraan ka dareemayna walow hadda aanan si taataabahaynin marka dadka ma isku yimid kulli waa mahadsan yihiin cabashadayna intaasi ku ogtahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anagoo magacayga cabdi sheekh maxamed sida aqyaartu ay uga hadashay waaye dhulkaasu nabadoonna ka hadleen aqyaar kale ka hadleen waa sida looga hadlay dadka ku hawlan inay waxayna lahayn ayagu ay ku mashquulaan oo ay shaqo ka dhigtaan waxaan u sheegaynaa waxaan uga digaynaa inay ka waantoobaan waxaan kaloo u sheegaynaa dadka maamulka ahood oo arrintan horay ayaa loo galay dhowr sano socota cadaalad waa laga waayay dadka meesha jooga oo maamulka waa soo dhaxgan cadaalad waa sameey waayeen waxaan uga digayaa marka waxaan u sheegayaa marka maamulka Hirshabeelle iyo halka dawladda oo federaalka arrintaas dad dhulkaas waxa iskala dad iskale loo og yahay oo dhaxeeya meesha la yiraahdo tuulada Caliyaal ilaa Deegaanley sagaal jafo ka dhaxeeya sagaal jafo ayaa go'aan ka gaari karta ayaga iskale qof kale oo kor ka timido iska timid meesha iyo iska soo degtay dhahaysa waxbaan ka sameeyaa ma soo geli doonto hadda ka bacdi hadda korna dada ku dhintay oo wax badan dada ku dhintay hadda kor oo si cadaalad darro ay ugu dhinteen oo dadka oo sameeyay oo macnaha meesha soo inay wax gadaaya oo dhulka boobka inay wax boobaan rabaan dib ka yimid ay dadkaas u dhinteen haddana ma rabno dad kale inuu ku dhinto inay dhibaato kala dhacdana ma rabno marka waxaan uga digaynaa dadka ku hawlan ama shirkad ha ahaato ama dulaal ha ahaato ama maamul ha ahaato waxay ka suurowdaa dadka iskale oo sagaalka jifa ayaa go'aankeeda iskale dhulkaas qof kale uma banaana marka waxaan u sheegaynaa intana maqlaysa oo amba maamul ah amba aha dad islaam arrintaas waxa iskale dadka dhulkaas iskale ayaa arrintaas ay u taallaa say doonaan ayaga ka yeeli kara dadka oo xadgudubka sameeyayna waxaan uga digaynaa hadda koor maadaama dad oo ku dhintay inayna ku kahsoomin waxayna lahayn in ku xadgudbaan oo ay ka waantoobaan oo hadda ka bacdi ay iska ilaalin ku shirkadaha la leeyahay lacag la orday iyo ku dalaalinta ka soo horeey oo inay wax boobaan rabaan digniintaasan si hayna waxay ku gaareen hadhowbeeta mas'uuliyadooda waxa qaadi doona dadka maamulka sheeganayo oo dawladda isku sheegay oo hadda koor arintan in soo dhaxgalay waxba ka qaba waay iyo kuwa shirkadaha intaas mas'uuliyadda qaadi doona Rahmaan Rahiim waxaan halkan ka sheegaynaa anagoo ah beesha reer Caliyaalo kuna dhalanay kuna dhisanay kuna dhaqanay dhul beereed iyo dhul goofo ku yaalo Deegaanley iyo u dhaxayso Caliyaalo la isku haysto 12 bilood dil meyd dhaawac dhibaato naga soo gaartay dadka wada dhaxeeyo dhaxal agoon ah shakhsiyad raba inay gataan iyo shirkado gooni habeen madow waxa biranayo ka waantoobaano maamulada culamaa u diinka akhyaarta Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in laga fiirsado dhulkaas ay ku dhinteen intaasoo raga waagana ay shaqaaqolada taagan tahay culamaa u diin akhyaar wax waliba la galay dhowr fadhi loo galay 31 baro oo sidaan oo kale la isugu yimiday wax aan dhibaato ahayn iyo dil iyo dhaawacna aysan ka imaan si xasaasiyad aan hadda habeenka madow inta loo cabirto loo gadanayo waxaan u sheegaynaa shirkadaha lacagta isaga beelayo oo ayagu meel ay ka keeneen lacagtu aanan aqoon annaka aniga dhul nin leeyahay ninkiisi ku dacwoonayo ama ku dagaalamayo ku dhimanayana $100 kama bixi karo shirkaduhu waa inay ka fiirsadaan iyo dadka Soomaaliyeed oo lagu marin habaabinayo dhul dadkiisi taagan yahay ay leeyihiin annaka iskale
dadka wax gadanayana meeshu kumana dhalan dadku waa dad yimid iyo dad loo yimid 3 mataan Cabdulle dhulkaas waxa iskala bariisa mataan 9 jufo waaye 9ka jufo waa kuwan wada hadlayo iga sii horeeyay hadda waxaan dadka ogeysiinaynaa emailiyalka ama nafiisanay ama maqli doono dhulkaas beec ma ahan waa dhul dhaxal kooba gabdhaye igaar dalka ee dibadaha dawladda adduunka Soomaaliyeed wada jiro waa in laga fiirsadaa oday akhyaar isku sheegaya wuxuu leeyahay ana saxiixay nin wax saxiix kara ma jiro aan halkan ka cadeynayaa dhulkan bariisa mataan oo tuuganimada loo gadanayo dad aanan dhulka aanan lahayn in iibsanayo shirkadaha wax gadayo haday dhex yimaadaan dhibaatadii ku gaartay ay ka isgaarsiiyeen annaga dhulkeena beec ma ahan dadkaasna namboobi karaan waa dad mataqaana meesha yimideen inay habeen madow dhulka gataan ay mataqaana boob nagu suubiyaan ay shirkadana wax ka iibsadaan cid u dul qaadanaysa ma jirto annaga dhulkeena habeen maalin waa u taagannahay cid dhibaato ku gaartana ida ay mataqaana la weydii doona annaga dhulkeena marnaba beecnaga ma ahan wax aan gadayna male waa dhul mataqaana bariisa mataan oo 9 jife uu ka dhaxeeyo oo wili dhaxalkoodii ku kala bixin mataqaana dad iska soo meesha yimideen oo tuuga wax iibsanayo shirkadaas been inuu sheegeen ay dhulkan yimideen ay mataqaana habeen madow toosh lagu iibinayo wax iibsan ma jiraan wax hor loo iibshan ay u gadeen ma jiraan wax hadda ka bacdi la iibi karaan ma jiraan waxay mataqaana meesha isku soo gaaraan dhibaatadooda ay kala kulmi doona annaga dhulkeena habeen iyo maalin waa u taaganaa wax oo mataqaana gali iibi karaan ma jiraan dad aan wax lahaynina wax ma iibi karaan waxay ay tuuganimo ku iibsheen bari ay kala su'aalaya dib ay ugu laaban doonaan annaga dhulkeena marnaba wax naga iibi kara ma jiro on mataqaana habeen iyo maalin annaga u taagan waa dhaxaltooyadeyne wax ma mataqaana annaga kala ma dhaxlin bariisa mataan waa dad tuuge wax iibiyo hayo shirkadahan oo mataqaana ku soo baaheen ee dhulka iibinaya ee mataqaana lacagaha oo baas ay ku shubuhayaan inay ka fiirsadaan ay ka waantoobaan waayo sababtoo dhulkaas dadkay wax ay ka iibsiyo hayaan dad u cad ma ahan dadka dhulka dhaxalka ku lahay ma ahan waa dad mataqaana sideedaba tuuganimo wax ku iibsiyo hay dadka kale ee dulaal aan nahna dhahayo oo wax iibiyo hayana ayakana tuuganimo ay kana ku dulaalo hayaan meeshaas gooftaas ee mataqaana caliyaale ilaa mataqaana deegaan leey ilaa carabadowga gasho ruuxa dambool ugu dhax arko oo ku dhinto dhibaatadaas ninkii keensada ay tagaysaa anaka waxa ka cabanaynaa dhulkaas oo mataqaana cawo madow shirkada gadanayso ka cabanaynaa markasto ay nagu wadaa ilaa 1 sano iyo ka hor dagaalkiisi iyo mataqaana iyo socdo marka mataqaana inay dhulkaas shirkadaas ay imaanin ayna gadan ama taana u sheegayna horta marka kooba 9 jifo ka dhaxeeya oo bariisa mataan u dhalatay nin kaleento wax lale ma jiraan oo bariisa mataan dadka gadanaya cawad madow wax nala male waana na dhacohayaan waa nimanna soo kordagay wax nala lahayn oo mataqaana ii sheeg mataqaana birigatan waxna lahayn anaka marka taasaan ka digaynaa ka waantoobaano shirkadda wax gadanayso waan ogtaa wax ma moogo nimanka oo soo horkacay dalaalka namatana ii sheeg wax beeni ka gadow hayaan hadhowna waxay u naqad doonaan nimankii mataqaana ii sheeg oo wax shirkadda ninkii wax ka gaday oo mataqaana iyo ninkii wax ka gatay ee waxooda ka doonayaan anaka wax nala male mana bariisa mataana wax nala male waxayna leeyihiin ilaa abuurta ma jiraan dadka gadaayo iyo dadka oo gadaayo halka gadaayo hatee bariis maro oo naqdan hatee waa ni tuug waa tuug oo wax gadaayo 9 jifoota isla jireen oo mataana wax uma kala dhaxsan dhaxal markii wax kala baxaan ka bacdi aanu bariisa mataana oo mataana loo mahamo manene kale oo wax gadi kara ma jiro haddaba shirkadda ogaato nin walbo meel jar ha ogaado maamul ha ogaado culumadin ha ogaato qof la arko meel joogto dhan ha ogaato waa maqliisiin